cashirkan waxaan ku baranaynaa sida page ganacsi looga furto Facebook. Qaybta calanka ay ku sawiran tahay pages ayaa tegeysaa. Kor ayaa dana tegeysaa qaybta create calaamada balaaska. Kadib get start ayaa leedahay. kadib pagekan ayaa kusoo baxayo noocee rabtaa businesska noocee rabtaa. Hadda waxaan ka dhigayaa computer shop. Adii noocee rabtaa dooranaysaa. kadib maxaa u bixinaysaa businesskaaga. aniga ayaan u bixinayaa. qaybtan waxaad dooranaysaa magaaladaada ayaa dooranaysaa magaalada markaas joogtid. next ayaa dhahay dan marka waxaan gelinaynaa marka pictureka loogada oo businesskaaga. picturekaas ayaan doortay dan ayaan leeyahay markuu dhameeyo qaybta complete your page ayaa tegeysaa. complete your page meesha ku qoran tahay click siinaysaa. descriptionka businesska muxuu yahay businesskaaga intaa ku qeexaysaa marka wuxuu yahay. markaa dhahdo qaybtan ayaa kusoo boodaysa numberkaaga telephone numberkaaga ayaa ku qoraysaa. eber ayaan iskaga qoraani. website haddaad leedahay next markaa dhahdo website haddaad leedahay inaad website ku qorin hoos ayaan click siiyey. adresskaaga ayaa ku qoraysaa. next markaa dhahdo marka email adresskaaga ayaad ku qoraysaa. kadibna update hours waqtiyada aad furan tahay. no hours available always open standard Monday to Friday ayaa dooranaysaa. marka businesskaagan waqtigu furan yahay adaa taqaanid. qaybtan add pictureska loogadaada ayaa ku darsanaysaa iyadoo weyn. save ayaa leedahay. wuu ku samaysan yahay hadda. marka add description haddaad ku darayso contact numberkaaga contact detailskaaga meelihii lagaa soo xiriirayay informationka add products haddaad ku darsanayso sidoo kale. haddaad rabtid inaad iska xirtid sidoo kale permanent close ayaa leedahay. marka cashirkan intaas ayaan kusoo koobaynaa. asalaamu calaykum.